waxaynu arkaynaa inama yaryar oo baastoolada la yaacaya oo aad daawato bal ka waran muuse marka lagu dhawaaqo xisbiga wadani baa helay natiijada qoriga weynna uu la soo baxaya marka baastoolada ahay inuu xilliga campaign-ka u isticmaalo awoodda dawladnimo oo dhan waxaa ugu sii khatarsanina waa tan nabadgelyada muuse bixi iyo groupkiisu aan walba waxay ka hadlaan natiijada ma la aqbalaya wuxuu uga jeedaa maanta ku fahamsiinaya dhawada waraysi koobnaan la yeelan doono wasiir hore Cabdilaahi Maxamed Daahir Cukuse kana mid ah xisbiga mucaaradka wadani wasiir waxaan arkaynay dhacdooyin kala duwan oo la xiriira ilaa xalay caasimadda Hargeysa qaar ka mid baraha bulshada Socdaan oo la xiriira ololihii xisbiga muxaafidka kulmiye isugu soo baxay bal arrintaas ay kula muuqatay uga faa'iideysto fursadan inaan u mahadnaqo 27kii bisha taageerayaasha iyo shacbiga Somaliland oo muujiyay isu soo baxyo ballaaran dalka guud ahaan oo u soo baxay maalintaasi isu soo bixi xisbiga wadani taageerayaasha xisbiga wadani 27kii bisha oo ahayd shalay ku beegnayd aad iyo aad baan uga mahadnaqaynaa waana guusheenu ku dhawaanay taata ku xigtana waxaan u malaynayaa inaynu sii labalaabi doono waxaan idka codsanayaa inaynu sii labalaabno su-aasha aad weydiisay waxa weeye doorashooyinka waad og tahay mar waa doorashada horteed marna waa maalin doorashadu dhacayso marna waa natiijada waad aragtay muuse bixi iyo groupkiisu aan walba waxay ka hadlaan natiijada ma la aqbalaya wuxuu uga jeedaa maanta ku fahamsiinaya 24 saacadood gudahood waxa uu sameeyay baan doonaya inaan kuu sheego markaasaad fahmi karaysaa wixii inaga dhaxeeyay sida uu u isticmaalay ayaan kuu sheegaya oo kaliya waad arkaysay koowaad annagu musharaxa madaxweynaha xisbiga wadani wuxuu ka qayb galay 27kii bisha oo shalay ahayd wuxuu dadka shacbiga kala qayb galay boorame uu ka yimi wuxuu kala qayb galay dilac wuxuu kala qayb galay gabiiley wuxuu kala qayb galay maxaan idhaahdaa berbera intaa wuxuu isticmaalayay hadda waa musharax oo quran ka hadlaya gaadhigiisa inuu saarnaa oo wata musharaxa madaxweyne ee xisbiga kulmiye oo muuse bixi ah hantidii ummadda ayuu dawlad ku fuulay dabadeetana maanta wuxuu ka qayb galay Hargeysa iyo Burco isagoo fuushan dayuuradu kireystay mana inaan maqal ganacsado uu kireeyay iyo ganacsato lacag u soo urursay toona waa su'aasha labaad waxaad arkaysaa qoriga dawladdu uu inaga dhaxeeyaa askariga dawladduna uu inaga dhaxeeyaa ciidamada dharcada oo magacyo lagu sheegay oo anigu aanan aqoonsanayn ayaa xalay magaalada rasaas ka riday sida social media ku jirta waxaynu arkaynaa inama yaryar oo baastoolada la yaacaya oo aad daawato qorigii buu dabadda u soo saaray maalintii koowaad ee campaign-ka xisbiga kulmiye annagu samaacada iyo calan iyo suugaan iyo ayaanu soo saaraynay iyo dadka oo aanu u sheegaynay waxaanu ku dhaliilayno xukuumadda iyo baahida ummaddu ay u qabtay isbedel doonka isagu waxaynu ka doonaynay inuu inoo sheego waxa uu qabtay laakiin wuxuu inoogu bedelay in xalayto Axmed Dhagax laga seexan waayo rasaastii in Axmed Dhagax laga seexan waa 12 saacadood warbaahintu way naga dhaxaysay waxa cabasho badan aanu ka qabnaa sida loo isticmaalay maalintii soo baxa xisbiga wadani waqtiga la sii daayay iyo inta laga sii daayay iyo farsamo ahaan inaanay u qalmaynin xisbiga wadani warbaahinta dawladdu intii ay sii daysay nasiib wanaag marka warbaahintu qof kastaaba halkiisa ku sitaa social media la isticmaalaa TV-yadii baa dalka inta ciidaa ka badan laakiin xaq waxaan u leenahay tan la wada leeyahay dawladda inaanu xaqaasi ka helo mid loo siman yahay anigoo waliba ku dhiiri gelinaya mas'uuliyiinta warfaafintu inay ka dadaasho arrintaasi waxa meesha ku jirta oo kaliya khayriyada wada arkaysa waa hanti ummad wada leedahay ama waa fagaaro ummad wada lahayd xisbiga wadani 27kii waa loo diiday xisbiga kulmiyana xalay uu isticmaalay waa imisa shay baan ku tiriyay waa 24 saacadood oo wixii dadku wada lahaa iyo hantidii iyo nabadgelyadii oo khatar gashay intaba aynu arkayno marka sababtu waxaa soo dhan waxaana weeye biyaha aad arkayso hortoodu
gadaashoodu waxay noqonaysana waa la garanayaa waxaan ka xunnahay inuu xilliga kambeynka u isticmaalo awoodda dawladnimo oo dhan waxaanba ta ugu sii khatarsanina waa ta nabadgelyada bal ka warran muuse marka lagu dhawaaqo xisbiga waddani baa helay natiijada qoriga weynna uu la soo baxaya iminka baastooladay ahayd iyo akeeye yaryare waan ka digaynaa waxaan leenahay war nabadgelyada ha la ilaaliyo dalka nabadgelyadiisa ilaaliya hantida inaga dhaxaysana halkaa ha taallo idinku wixii aad ku tartamaysaanna ku tartama wixii aad ummadda u qabateen u soo bandhiga annagu waxaanu sababta baahida ummadda ugu qabto isbeddelka ugu qabto baan maalin walba sheegaynaa waxaad arkaysaa mucaaradkii oo ilaalinaya nabadgelyadii oo dadka nabadgelyada ilaaliya oo leh dadka haflagaadeennina iyo mas-uuliyiintii xisbiga kulmiye oo maalin walba la soo taagan sharsacay iyo aflagaado iyo iyaga oo dee shaqaba ka dhigtayba oo malaha ku kala darajo sarreeya siday u kala cayb badan yihiin maasha allah soo dhowaada la jaanqaad shirkadda telesom maxmil waxay kuu diyaarisay adeegga internetka ee fiber optiga kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa ishaa biligteeda intuu soo gudlanayo hadalba gam hagarla ii ku isticmaal social miidiyaha kuna daawo wararka cayaaraha iyo online geemiska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiidh nambarka gaaban 121